بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملكستو aad laga daawanaysaan waa channelkeena cagta iyo dunida CID Pro TV ee wararka wareysiyada iyo waxaan u soo joogay qaybtani waa qayb ku saabsan CID Pro TV sidee ay ku bilaabatay goorma ay bilaabatay wax walba bilow ay leeyihiin. Obviously one of the funniest videos until this day that I find so funny about this guy standing behind the camera, Zach Salad, is the video from Shit Somali People Say and Do. Him, the other guys there, shout out to all the man them there, innit? Alright, thank you, Mr. Aston. Have a nice day. Oh, blimey, all these Somalians born on the 1st of January. Zach, we met in Nomad Radio about 3-4 years ago when you had the smash hit, what was it? Shit Somali People Say and Do. I think you had two parts of that, so we met then. Hello, we're from the centre, and we're basically just going around everywhere, like people around the neighbours and stuff, just asking general questions and stuff. Yes, Can I get your name, please? It's Haji Ali. Just spell that for me. H for Ho. Yeah. A for Abdi. J for July. Okay. That's fine, don't worry. Can I get your date of birth? 1st of January. 1st of January. But yeah. 1990. 1990. Yes. 1990. It's quite funny, actually. Some Somali guy over there is the same age. Really weird, right? YouTube. Yo, listen. Don't take my spotlight. taking over the interview. No, you've been taking my spotlight for months. Man, stop. All right, cool. Now we're here for an event with Mr. Zach Salad, legend in the making. All right, cool. So what? Answer the questions. Both of us. What are you guys here for today? I'm here to have fun, tan up. You know what there? Couple yeah. So you know, we're gonna have a good time. We're gonna have a good time. 2013 waa 13 sano ka hor ayaa fikirkan u yimid allaha awood leh ayaa waxa uu fursad siiyay ninka dhalinyarada ahaa ee Liibaan Zach Salad inuu arko baahi inay jirto ku saabsan guud ahaanba qaabka iyo sida wax loo gudbin karo dadka dhalinyarada ee da'diisa oo kala iyo dadka kalena lagu tusi karo waxyaabo markaasi aan jirin oo ah in dadku warka isgaarsiin karaan iyo iyaga laftooda in lagu dhiirigeliyo inay wax soo abaabulaan wax soo sameeyaan kadibna ay bulshada kale u gudbiyaan. fursadaasi waxay noqotay mid meel martay oo bilaabatay 2013 dadka waxa lagu la hadlayay waa luqadda u dhasheen luqadda Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska maadaama meelo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan ay ahayd arintani haddaba waxa jiray wax walba bilow markay yihiin ee qaybo badan oo lagu bilaabay oo laakiin dhamaantood aan la soo wada gudbin karin laakiin ujeedku uu yahay 13 sano ka hor mar haddii CID Pro TV ay bilaabatay waxyaabihii laga sii daayay qaybo kamida inaad daawataan iyadoo dhici karta qaarkiina hore inaad u daawateen laakiin ay xusuus tahay. Yeah, we do. We get a lot. We've been here almost since '94, so we've been here 22 years now. Yeah. But we get a lot of Somali community because this area is Southall, so we get a lot of Somali community. Okay. So you guys are bidar specialists, like you deal with Birad specialists, Arab specialists, everything. So we do it. Yeah. So did you learn your Somali from the customers? No. I'm Somali. I didn't learn from so. You're Somali. نقدر. Okay. The Somali way. Somali ما أكيد سؤال أوكي سؤال عفوا قلت كنا أسكال لينين إن Somali تهاي لكن Somali. Somali كل شيء. أنا محمد تومسون ودنا كان 93 أو ما تومسون كجرا. وكنا. ما شاء الله قبل حتى واحد جوك تحقق حتري وحاول أكتها دريك. مركز خفقس بهنا لا دريك لكن مدعي محل محمد دريك مئي. So I'm Somalian. Somali Jewish. Jewish me, so that's why. Just kaftan. كفتوا joke يا we love you shalom. Zach Salad meelo kala duwan ayuu tagay dad kala duwan buu la sheekaystay siyaabo kala duwan ay u sheekaystaan qaybo kamid ah ayaan jecelnahay inaynu qaybtaan marka hore aanu ku soo gudbino maaha oo kaliya UK gudaheeda meelo kala duwan weeyaan waxa kamid ah isaga laftiisu qaabka iyo sidoo dadka u arkay isaga laftiisu waxbarashadiisu sida ay ahayd isaga laftiisu sida uu qalin jabiyay isaga laftiisu jaamacadaha kale waxbarasho uu tagay eventiska ama meelaha kale wax lagu dhigay uu tagay iyo qaabka iyo sida uu uga qayb qaatay xaalku sidoo ahaa bal guud ahaan qaybtaas aan wada daawano. Finally, I met Zach Salad. What did you think about Somali Kick Nation when you first saw it? Well, the first time when I saw Somali Kick Nation, obviously, I got on YouTube. Yeah. You know, I was finding Somalian young talents and Yeah. stuff. And I saw a video called Somali Kick Nation. And I say, this is new for me. Yeah. Let me see it. When I opened the video, the first video of Somali Kick Nation. And I saw all the videos. Yeah.
and it was brilliant, to be honest. And I said, who made this? Of course, he got a good brain, like it's a brilliant work, you know? It was amazing, mashallah. And I say, Zach. I didn't meet him before. I didn't see him before, but he's kind, he's mashallah good. I can see it from face. Okay. And mashallah, you go to Somalia and England, you travel into the world, mashallah. Yeah, I haven't been to Somalia yet. I want to though, inshallah. Imagine taking Somali Kick Nation to Somalia. Yeah. On a tour. Wow. Wow. So that would it be was brilliant, subhanallah. mashallah, amazing. Keep your head up Yeah. and never give up. Never give up. Never. Well, Never lose in Allah. Never lose hope in Allah. That's true. Never lose hope in Allah. No, inshallah. I'm looking forward to season 5 of Somali Kick Nation. Are you looking forward to season 5? Of course. Yes. Very excited. Bro. Very excited. Very excited. Very excited. What? You want to? You can't make a video? I want to, but Are you shy? I love to, wallahi, but I'm too shy, wallah. You're too shy? Yeah. I get a lot of messages like, oh, I love what you're doing. I'd love to participate and be in an episode. But you know, the way that my family's set up, I'd probably get beat up or disowned. And I was like, yo, it only depends on what kind of content you send in. Because there's so much images and propaganda about Somalia. You know what I mean? Bad pictures, videos of like negativity and stuff. So it's important to balance that out and have, you know what I mean? That's a part of life. It is a part of life, and it's my purpose. I kid you not, it's a purposeful thing because I don't get paid for it. So if I'm not driven by money, I'm motivated by passion. So it's a passionate thing for me. You know what I mean? So, and that's a fuel that I don't have to pay. You know what I'm saying? It's a tank that just keeps giving. So alhamdulillah, I'm grateful for it, man. I'm very, very, very happy. إلى اللقاء. أهلا وسهلا. That's it, yeah. Plug it in? Yeah. And in my school, twice, which is 2013 and 2014. And mashallah, I'm doing good, alhamdulillah, so yeah. What happened yesterday? And tell me about Somali Kick Nation. Man, to be honest with you, it was unbelievable, brilliant moments in my life, to be honest. 45 minutes was perfect, mashallah. Because I couldn't imagine that I'm gonna meet you one day. Me, Zach Salad. Yes, Zach Salad, exactly. Subhanallah, oh my God. So it was like... Can you tell my friends who take me for granted in London about this? Mashallah, brilliant. Thank you. Mashallah. Barakallah, you know, it was amazing to meet you too, man. iyadoo haddaba qaybtaasi ay sidaas ahayd ayaa Zach Salad laftiisa waxaa fursad uu helay in ay wareystaan qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga ah taas oo macnaheedu uu yahay maadaama la arkay waxqabadkiisa iyo waxa uu sameynayo in wax laga weydiiyo qaabkiisa sidoo ku bilaabay hamigiisu sida uu yahay iyo waxyaabaha kale oo markaas uu hayo isagoo dhinacna markaas jaamacad ku jira wax baranayay dhinacna hawshan iyada ah bulshada u bilaabay bulshaduna aad ay u bogaadiyeen oo aad u jeclaysteen qoraysiyada meelaha laga yeeshay waxa kamid aha Islam Channel oo ah channel weyn oo fadhigiisu yahay UK laakiin aad iyo aad bulshada dunida ay u daawadaan mar la wareystay barnaamij kamid ah barnaamijyada ka baxa ayaanu qayb kamid ah idin kula wadaagaynaa hadii aad tihiin dadka daawanaya CID Pro TV. But now it's time to bring yourselves back here to the studio, and it's time to welcome our second guest, and he is a London-based editor, actor and producer who has featured in a number of commercials for HSBC, Aquafresh, Virgin Media, and has also starred in a popular US TV show, Guilt. He has also won an award as the Best New Director for the British Horn of Africa Awards. The producer wants to inspire other individuals to follow their dreams and break into creative careers. The editor is particularly focused on producing and creating content for the Somali community, and he's got Somali Kick Nation, SSP. Do you know what? He's got so many projects. We're just going to speak to him and find out what he's got going on. So welcome to the show, Zakaria Salat. MashaAllah, you do so much. Just where did it all begin for you? It all began when I was in class studying a degree that I shouldn't have been studying in the first place. I was studying cognitive neuroscience at Westminster University, Regent Street, and I was in a lecture for, I believe it was artificial intelligence, where we were programming a robot named Hank. And that's when I realized, I was like, this is not for me. I love the aspects of understanding psychology and behavior patterns in people, but
not Becoming robots? a neuroscientist isn't for me, and I took a gap year, brought my own camera, started filming content. The numbers started to grow, and I took it to a school known as Ravensbourne, which is an institute in London. Yeah. And I got a fast-track degree in 2 years, and it's been up ever since I graduated, alhamdulillah. Alhamdulillah. So you're doing filmmaking, but you're also doing the acting. Yes. How does it work to do it all? Well, Like, do you set up the camera and then get in front of it and go, hey? I've actually done that before. You'd be surprised by the amount of times. No, as a digital film production graduate, I did pre-production, production, and post. So it's all aspects of it. And being an actor was just something that I naturally gravitated towards. I'm an only child, so I love entertaining myself or keeping myself focused or motivated. So I love that. Jumping because around. You're an only child. Only because I'm an only child. But jumping around and trying to do different elements is me. I love how you kind of use the quotes. Like I was mentioning quotes, it's Wisdom Wednesday. Yes, so we had quotes at the beginning of the show. Did you hear our quotes from the green room? Yeah, I heard the. I heard. Do you have any favourite quotes? You kind of mention them casually in your speech. Favorite quote. Okay, this is from my dad. Okay. Akta Haji, he says, Irka I dulka. That means the sky and the ground. So humble yourself, basically. In other words. Yes. Yeah. No, very true. Yeah. And I say this because my dad's very famous in the Somali world. Mashallah. And obviously me trying to create my own entity in the mainstream can be quite challenging when people think that everything that you have has been given to you by your father or by your uncle or by your grandfather. So it's important to So why did you use Son of a Don if Son you of a were Don. going to try to... It's because at first when I named myself Zach Salad and created this ultra persona, it was to kind of distance myself from that. But I kind of now, instead of doing that, it kind of attracted me towards it. So I don't use it as something where I'm like, no, I got this on my own, but in a way where I'm proud. No, yeah. Did your dad tell you had to have that name? Oh, no. I love this bit. The interview's going to go on here. Yeah, he was like, right, so if you want to do well, you're going to have to give it call. I love these accents. So do you do accents I do accents. I do characters. I'd love to do animation. That's one of the things Can you do a Moroccan one? I don't think I could do a Moroccan one. If I did, it would probably be very, very terrible. Don't try that with a Moroccan accent right here. Yeah. I don't think that's a very good idea. BBC World Service iyada lafteedu waa qayb kale oo caan ka ah dunida oo dawladda Britain ay leedahay ee adduunka oo dhan wararka iyo barnaamijyada ka tabisa iyada lafteeda mar ayay fursad noqotay in ay kulmaan oo uu booqdo studio-dooda weyn ee ku yaala magaalada London kadib markay u arkeen inay muhiim tahay in waraysigan lala yeesho oo iyada lafteedana uu si aad ugu faahfaahiyay waxyaabo badan oo markaa taagnaa laakiin haddana uu markan bal eegayo qaabka iyo sida qaybo kamid ah ay wax u weydiiyeen iyo sida uu u jawaabay oo iyada lafteedana aan la wadaagi karno adinkoo ay dhici karto qaarkiin hore inaa u daawateen alxamdulilah fursadan oo filmmaker ku noqday waxaa bilaabay 2012kii alxamdulilah camera baa iibsaday dadkii bulshada soomaalida oo saaxiibaday filmo isku duubnay anakoo mostly qosol jileno iyo comedy youtube platform isticmaalay soo geliyay videoyaashadan inay dadka ay fiirsadaan ay ku buuqdaan maasha allah intaasoo milyan oo qofood oo soomaaliya adduunka dan ana wada fiirsadeen markayna wada fiirsadeen waxay noo soo sheegeen inay baahi jirto dhalinyarada soomaaliyeed inay arkaan muuqaalkoodii iyo dhaqankooda oo diasporada kuwa jooga so alxamdulilah fursad wanaagsan ay ahayd inaa youtube channelkii intaasoo milyan ay fiirsadaan markaasna waxaa isdhahay ninyaho waxaa jeceshahay waxaa ka fiican kuna sii wanaagsan inaa ku qalin jibisada jaamacadna uga baxdid so alxamdulilah channelkii baa qaaday waxaa u tegay jaamacada ingiriiska ugu weyn oo filmaanta soo bixiya oo la dhaho Ravensbourne Institute oo ku taalo North Greenwich alxamdulilah fursad wanaagsan ku helay inaa jaamacadeeda ku qalin jibiyo 2 sano inta 3 sano sameelahay kadibna ku shaqaystana filmmakerka sameeyo alxamdulilah youtube channelkayga intaasuu sii kacay bulshada Soomaaliyeed adduunka dan wada joogta iyo kuwa Soomaali ahaanba way fiirsadaan wayna i taageeraan saasana kusoo bilaabay filmka ilaa hadda marka filmaanta aa samaysay bal inoo sharax maasha allah filmo badan waa sameeyey waxaa kaga bilaaba horta asalkii comedya bilaaba oo la dhahaa s people say oo soomaalida ku saabsan dhaqankooda iyo si guriga markay joogaan iskuula hadlaan wax adig qosol oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo waalidkood ay ka tabanayaan mise walaalahood kale ka tabanayaan waxay u joodaan ku soo koreen waxaa kamid aabi iyo wiil oo fadhiyaan meel mise hooyo wiil oo meel fadhiyaan aabiya cunuga uga yeeraa qolka kale oo shisho oo xagga joogo aabe kaale uu imaanaa maxaa rabtaa
remote-kan intii agyaal ii soo qabo so ilmihii waxay dareemeen inay waalidkii isticmaalayaan muxuu ahay xooga waalidnimada oo xaqa oo waalidka inuu wax ku dirsan kariyo awoodin uu leeyahay inuu ku dirsan karo wixii ay ka sheegayo ay ku dhow yahay so waa wax adi yar ka soo qaatay oo qosol so alxamdulilah wallahi ma sha Allah waaya rixaysa lawa waxaad ii sheegtay idaacadaadii maanta laga wareysay ku jirtay in film samaysay lagu soo bandhigi doono wadanka Australia isagoo markaa halkaa dad badan ay ku daawan doonaan marka arrintaas bal inoo faahfaahi ما شاء الله فيلم كهدليسيد وحواي The Audition بالدها فيلم كاس وفيلم 2014 كي دياري وحان اسلسل من المجامع ذا اسل ديغنو قبر لده اوليفيا توبلي دايركت كريسي انيغا وا بروديوس كري اكتر نو كا هي ويل كلو انا لدو لده جوزيف سي حتى ما شاء الله فرصه وناكسنا اي اهد فيلم كاس انا كدو 2014 كي وحان اسكو دي انا اديرو فيستيفال او لده ترايبيكا فيلم فيستيفال او كيالو مريكان نيويورك سيتي وفيستيفال فيلمانتا baa lagu soo bandhigaa dadkii oo isu soo bixinayaan oo dareerwaan adduunka inay arkaan jeclaa inay ka arkaan ilaahay iima qorin markaas inay filimka aqbalaan soo 2 sano filimka keedinayay bilo ka hor waxay ila soo xiriireen 2 gabdhood oo degan dalka Australia Perth Kowsar la dhahaa midna waxa la dhahaa Itisaan ma sha Allah gabdho wanaagsan waaye oo organization sameeyeen oo la dhaho Raja Inc oo ayka ugaar inay dhalinyarada Soomaaliyeed oo communitygooda degan inay abaabulaan events mase festivals ka soo qayb gali karaan soo gabdhiyaas ay ila soo xiriireen waxay dhaheen aad iyo aad ku jeclaan alaabta sameeysid filmantada sameeysid waxaana jeclaan lahayn ina festival adi magacaaga ku sameynayna oo filmantaada dan laga soo wada deynayo waxaana jeclaan lahaa inaad noo timaadid anagala soo qayb gashidna fanskaaga joogaan Australia inay kugu imaadaan ee kula fiirsadaan so fursad wanaagsan ay ahayd alxamdulillah waxa ii qorneed maanta cawada tonight ina baxo Australia ha so Singapore ka bedelanahay then Perth oo si kuray waxa igu soo kordhantay ina documentary-ga hadda wado Oslo ka imin 2 weeks ago oo tahriibka ku saabsan ina مشغول waxba ka weydiin doona kaas haye inaad ka mashquulin so arinta oo Australia waxay dhacaysaa Sabtida 28 insha Allah dalka Perth oo Australia ku taalo waxa waaye film festival oo qaas Soomaalida filmanta aniga dan filmanteeda laga soo saarooya alxamdulillah waa wax fursad wanaagsan in dad dhalinyaro adduunka kale meel kale ka joogaan inay ku soo wacdaan ay ku dhahaan no imaaw filmanta la rabnaa ina sii deeno dadka adiga ku fiirsadaan rabnaa ina casuno inay yimaadeen tigida gataan so ma sha Allah wallahi fursad wanaagsan waxa soo hadal qaaday inaad tagtay Oslo Norway oo hadda aad gacanta ku haysid film ku saabsan tahriibta marka filimkani ma dhibaatada tahriibta kaga hadlaysaa mise si kala u eegaysaa tahriibta ما شاء الله اوكي Oslo hadda markaa tagay waarun waxa soo duubay qaybo kamid tahriibka documentary diyaarinoy documentary-gaas waxa way documentary 40 daqiiqo oo ka hadlayo ka hortaga tahriibka dhalinyarada Soomaaliya joogto iyo kuwa diaspora-da joogaan inay kuwaan qurbaha joogaan sax ma sha Allah Soomaaliga inay kuwaan qaataan inaysan ahayn tahriibka wax iska caadi inay tahay wax naftooda halis gelinayo ayakana kuwaana qaataan wiil dhalinyaraha wareystay oo ka soo lugeeyay dalka Ethiopia ilaa Libya oo soo galay Talyaaniga dhibaatada iyo rafaadka uu soo maray oo igala hadlay oo la kulmay qolihii Magafe organization-ku iga sheekeeyay inay ahayn hal qof leh Magafaha la maqlo inay tahay dad badan oo isku xiran oo community camal oo ku shaqeysta ku taajirana dadka dhibaatada Soomaalida gelinayaan ayaka Allahu wa'lam inay ka tahay qof inay caawinayaan wadan uusan gali karin inuu soo geliyaan mise inay ka tahay inay qof oo very weak inay ka faa'iideysanayaan taas waa ayakii alahood balaakiin mid anaka iswada ognahay anakoo dad Soomaaliya waxay tahay inay dadkeena ay badaha ku dhimanayaan dhalinyaradeen inay badaha ku dhimanayaan hooyooyinkeen aabooyinkeen ilmaheena dhalinyarada dadka dan way wada dhimanayaan wiilka marka filimka aad ka samaysay oo aad ugu tagtay Oslo Norway muxuu fariin oo filimka waan daawan doonaa filimka markaa soo saartay insha Allah xaqiiqdii muxuu marka u gudbinayaa dad badan dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa hadda ku daawanaysa 834 qof ayaa hadda online ku jirta oo toos ku daawanaysa waxaana laga yaabaa filimka muuqaalkan ama barnaamijkan hadda inuu gaarayba kumaan kun oo qof inuu gaaray insha Allah marka
fariinta marka wiilkaasi aad ka soo qaaday oo aad jecesha inaad dadka u gudbisid dad badan baa dhici karta in caawa ku fakaraya inay beris wax baabuur raacaan oo tahriibaan oo yurubaan tegaynaa ama meel kalaan tegaynaa ku fakaraya maasha allah waxa mid uu ereyga ugu culusaa ka qaatay wiilka dhalinyarada wareysta waana wiil yar ma aha nin weyn wiilka dhalinyarada wareysta wuxuu yiri aniga marka aad joogay wadankii dad anaka ila joogi jireen ood arkay inay tahriibeen ee wadan Yurub ay soo galeen aniga Facebook iyo Instagram-ka iyo Snapchat-ka ka fiirsaday baraha bulshada ayagoo joogaan oo nasanayaan raaxaysanayaan musuuro qatar qaadanayaan aniga wuxuu yiri waxa ay galay hami war dadkan hadda kula joogeen inta meeshan kula joogeen qurbihii tageen oo nafisayo oo dhibaatadan ay ka tagtay dadkaasoo kale aase kaa reebin laakiin uu yiri telefono badana liisoo diruu yiri oo lila hadlay qaas ahaan oo lidhahayo muxuu ahay war ha soo bixin ilaahay allah hadduu yahay ha soo bixin wax inta laga faa'iidayo ma leh dhibaato badanaa soo aragnay ha imaanin inta saana nugu dhacday asaga afkiisa xataa wuxuu igu yidhi ereygaas markay idhahayaan warkaas iguma socdo waxaa aaminsanahay dadkan ma rabaan raaxada ee ayaga ku jiraan inaa ku jiro so waxawaa wiil oo asaga fikradiisa iiga sheekeeyey suu ku fakari jiray markuu hadda yimidna dhahaya fakarkaa ku fakari jiray fakarkaas waa fakar qaldan haddana waxaa rabaa inaa tiimka ka dambeeyo oo dhahayaan inay qaldan tahay arrintan in la sameeyo waayahay arrintaas marka wuxuu ka wadaa dadkii qurbaha yimid ama soo tahriibay ayaa sawirada laftigooda dadkii wadankii joogay ama meelo kale joogay ay arkayaan marka waxa weye micnuhu baraha bulshada ayaa waxay bixinayaan sawir qaldan oo qofkaas xaaladdu soo maraya khatartu ku jira aan ka weyn sax waxay adi lamid tahay private jet adoo inta lagaaga kiray helicopter ku soo doonay adigoo wariye oo BBC u shaqeeya helicopter ku yimid helicopterka ku qaaday wuxuu ku geeyay Paris baa ka dagtay limousine baa gashay limousine markaa gashay ka baxday waxa gashay restaurant oo 5 star ka cashaysay meel wasiira tagtay hotel qatar tagtay videoyaashaas hadda aniga wiil oo dhalinyaro oo joogo Soomaaliya oo wariye raba inaan noqdo ku fiirsado waxaas dhaha wiilkan meeshan uu gaaray ina gaaro waaye saa ku gaaraba inaa gaaro waayo taasna waxay keenaysaa inay noloshooda ay dhibaato geliyaan inay ku soo galaan waa hagaag marka haddaba qaybahaas aan fiirinay macnaheedu maaha intaas oo keliya inay yihiin wax badan ayaa dhacay dad badan ayaa fikiro kala duwan soo gudbiyey daawadayaal badan ayaa la helay dad badan ayaa ku baraarugay oo qaaradaha adduunka jooga oo iyagu muuqaallo fara badan ay ka imanayeen oo taasina ay noqotay fursad ay markaa dadku ay ku daawadaan waxaan xusuusanayaa aniga lafteeda anigoo cagmadhiga oo daawadayaasha ka mid ahaa qayb Somali Kick Nation oo ah mid caan noqotay oo aan ku xirayn aqoonta qofka aan ku xirayn laakiin si aad iyo aad loo soo gudbinayay si aad iyo aadna bulshada ay markaa ay u daawanaysay intii la socotay waqtiyadii ugu dambeeyay wararka ayaa daawanayseen barnaamijyo ayaa daawanayseen waxaan u soo joogaa daawanayseen adinkoo YouTube-kana ka daawanayay oo subscribe lahaa dhinaca kalena ka daawanaya Facebook-ga arkayana in horumar ballaaran u muuqday marka la fiiriyo CID oo maamulkeedu u arkay inay laga maarmaan tahay in bulshada lala wadaago Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaba xogta ugu dambaysa iyo barnaamijyada oo adinka laftiinana fikirkiina la qaadanayo waxa yeelay hadda lafteeda waxaan aragnaa qoraallo aad ku soo gudbisaan xagga YouTube-ka fursadihiina iyo waliba Facebook taa lafteedana aan idinla wadaagi doono qaybo kamid inaanu halka ka sii deeno ka akhrino qaybo badan oo hadda aan aragnana inteeda badan waxay u badan yihiin waa hambalyo iyo duco oo nala leeyahay CID Pro TV halkiina ka sii wada cagta xaji dhalinyarada documentary soo bixi doono tahriib ku saabsan maxaa ka dhehaysaa waxaan leeyahay tahriibka in la joojiyo dib badan buu leeyahay dhinacana shaqooyin in loo abuuro iyo waxtar حياة بدن وتاريخ بدن مقصود وعليس بدن بعد بدن بمارك مقن ونمري وعلى الله هنا بحر رجينا إن تاريخ استاج وحي وكل استاج لنا لقى شقي هاي سوبر ستار مفتكرين بسم الله الرحمن الرحيم فرحت بالله هاي إنه قلبي قدام بيت شغلي مجال أنقرة حرونت دلك تركيا ومجال غرف بدن سكان الإنسان أودوا على سعر العتيق صدق ما شاء الله وكل في عن ولا دينية ولا مهدي لا وحنا كبرينا عمر دير لا تسوي بني عاطمة سوالنا ملك استي أدون كجوكتا أنكرنا وحنا كملتها مالها أي جوجان إلهي هنرضي يلا ما عرفت كوي لما تقوليه كعيشة كوي هشية كوي دلك وده قول استسلا دلك كانوا كلا الله كذب آمين وحنا كفر حسنا إن أنا هل كان كشيء إنه صوص عدد دوكيومنتري أما فيلم
laga duubay meelo kala duwan waxa uu ku saabsan yahay tahriibka dadka Soomaalida dhalinyarada rag iyo dumar meelo badan baa la tegay Kenya la tegay waxaa la tegay Talyaaniga waxaa la tegay Norway waxaa la tegay ilaa iyo Austria Ankara hadda la joogo intaa waxaa laga shaqeynayay qaabka iyo sida loo hor istaagi karo tahriibka uu dhib badan yahay mashaakil badan yahay waxaa la wareystay dhalinyaradii tahriibta rag iyo dumar dibkii ay la kulmeen shaqadaas oo dhan waxaa qabtay soo saaraha maaragtay directorka Liibaan Cagmadhiga Zaak Salad oo runtii waxaan markaa rajaynayaa Zaak Salad ama Liibaan Cagmadhiga hawsha uu qabtay markuu soo bandhiga dhawaan inay noqon doonto mid wax ka tarta guud ahaanba tahriibka sidoo ku istaagi lahaa iyo dhalinyaradan tahriibaysa sababta keenaysa inay tahriibaan rag iyo dumar in la joojiyo taasuna waxay ku xiran tahay iskaashiga guud ahaanba dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan Zaak Salad oo kaaga mahad celinaya documentary-gaaga iyo meelaha badan iyo waqtiga badan iyo waraysyada badan aad qaaday anigoo cagta xaajiyana aadan ugu faraxsanay marka aad soo saartay documentary-gana waa dadku way daawan doonaan oo way ka mahad celin doonaan dadaalka aad samaysay bulshadana waxaad u tahay tusaale fiican Allah ku xafido Assalamu alaikum. My name is Zaak Salad, but my actual name is Liibaan. I'm an actor, filmmaker, based in London. Any advice that I could give you is believe in yourself, because nobody else is going to do it for you. Everyone is going to find one person or a few people who are going to hate them for no reason, and they're going to break you down more and more and more, and it's your job to keep getting up, up, and up. So that's it. Assalamu alaikum. anigoo Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige ayaa soo gudbinayay laakiin waxa farsameeya waxa muuqaalkan duubay waxa wax walba oo aad daawanaysaan ka dambeeya ma sha Allah gacantiisa Allah u barakeeye Zaak Salad oo ahaa aasaasihii CID Pro TV